بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي على مداوضة كسور دوادا إذا عدى عدك جبوتي مانتا ومالين عيدا كبيهان دادكا ريد جبوتي ميلكا سوي نقر دقيستني أنو حلالنا هاي أمبا دادكا كلام مسلم كي أدوية ميلكا سوي نقر دقيستني أنو حلالنا هاي عيد مبارك عيد وناكسن أن وحا أن رجيني أنا أمبا أن دعاي كيني يسلاديني يو إناي ماركتي إن إلهي نقا أقبله برنامجكنا عوا waxaa sida caadi ahayd bay la daadin doonaa Axmed Aadan soo waan dhowahay Maxamuud dhammaan daawadayaashii waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ma daragtay ducadiinii iyo soonkiiniba iyo salaadiba ilaahay naga aqbalo toddobaadka caawa waxa aan maadaama aan joogno maalin ciida waan soo koobaynaa hadduu alla yidhaahdo waxaan laakiinse ku soo koobaynaa dhowr qodob oo muhiim aan u aragnay toddobaadkan waxa aan ku bilaabaynaa Djibouti oo isqabqabsi ay ka timiday xagga maaragtay dawladda oo xagga baraha bulshada xoog looga hadalhayo waxa kaloon Axmed ku soo qaadaynaa Djibouti sanduuqii Djibouti halkuu maraya maxaase ku soo biiray waxa kale toon Axmed oo ka hadlaynaa arrimaha geeska sida warqad la sheegayo inuu madaxweyne حسن شيخ محمود وقري مريكان كا يجواب أي بحسي دولة إسكيد مدح بنانا دا وشيغانس سوماليلاند أو مدحوين إيرو ومدحيان إن أحمد أنكو بلونو جيبوتي محمود ماتا نوحن مغليني دوان تضبط في دويد براه برشادة قبصدي لابن إنو كم مسؤول كا مرسوي كا إيو دكدا جيبوتي oo kala jaamacad Abu Qadir Hadi oo dikadoo dhan haysta iyo nin la yiraahdo jaamac bafleya oo isna director-ka dikad gooliya oo hoos timaada Abu Bakr Hadi hoos timaada ninkaasi wuxuu kale ma daragtay ku eedeynayay lahaa shaqadan ka fariisiyay ka bax xafiiska iyo ka bixi maayo waxaan maqlaynay ma daragtay la isku adeegsaday askar la isku adeegsaday oo xoog albaabadii lagu furay xafiisyada ilaa imikadaana ma daragtay ay labadii sarkaalba ay ka maqan yihiin shaqooyinkoogii Maxamuud maxaad war nooga haysaa arrinkaas Axmed horta arrintan baraha bulshada qabsatay waxa u dhaxaysaa laba nin oo maaragtay marsooyinka Djibouti madax ka gaar ahaan ninka marsada kontenerada la yiraahdo madaxa ka DMP madaxa ka Jaamac Ibrahim Daraar iyo leeyta dhinaca kale ninka marsooyinka Djibouti oo dhan amba zone free zone ka Djibouti la yiraahdo haysta Abu Bakr Umar Hadi labadan nin oo la war laga soo duubay amba hadal laga soo duubay ay tilmaamayso inay gacan ay maaragtay biirooga dhexdiisa ay isku qaadeen oo mid leeyahay midka kaleete ilbaabka ayaan ka saaray meeshan anaa leh ki kaleetna uu leeyahay meeshan xeer iyo waxa ku imiday anagoo run ahaantii taas Djibouti xeer xoog iskaga yariyaa xeer qof meel ku tagi laakiinse nin uu sheeganayo in halka loogu magacaabay wax u eg xeer in laga qaado ka kaleetna uu leeyahay meeshan aniga ka madaxa anaa ka taliya aan waa aqalkaygii ilbaabkaadiga bixi Axmedow arrintani ma aha oo kali lahaatay mid maanta soo beertay oo kali lahaatay oo maaragtay markii ugu horeysay ay dadka reer Djibouti ay maqlayaan rag mas'uuliyiin
oo maaragtay faraha iskula tegey axmedow waqti yaroo dhow waxaan arkaynay in wasiirkii la yidhaahdo maaragtay wasiirka faafinta dowladda amba wasiirka decentralizationka dowladda loo yaqaano in uu meesha shaqadii ka fadhiisiiyey nin dad ay soo doorteen oo maaragtay la odhanay maaragtay duqii magaalada Djibouti inuu yiri maaragtay shaqada ayaan ka fadhiisinayaa taasina ay run ahaantii dadka reer Djibouti ay maaragtay madax jib ay keentay waayo dad badan waxay leeyahay inkastoo doorashooyinka Djibouti la og yahay inayna wax badan ayna ka runahayn laakiinse u ekaysiistii oo kalilaatay meesha inay ka baxday waayo nin ay shicib soo doorteen inuu nin wasiirihi shaqadan ka fadhiisinaya yiraahdo isagoo oo maaragtay u soo cuskan xag maaragtay adduunyada waxa jira hadii shaqada nin maaragtay duqa magaalada oo kale hadii shaqada laga fadhiisinayo waxa ka fadhiisiya hadii wax lagu eedeeyay oo maaragtay cadaaladdu ay loo isticmaalo ayaa wax laga joojin karaa laakiinse qof dawladda waa la dawlad way kala baxsan yihiin waxa la yiraahdaa xukunka maaragtay dawladaha hoose iyo xukunka dawladdu way kala soocan yihiin xukunka maaragtay xukunadu si u kala soocan yihiin halkan waxaad arkaysaa in xukunadii ay isku dhaceen oo meel midaatay ay joogaan oo maaragtay ay isku mid yihiin oo kani madaxweynuhu soo doortay uu ka sareeyaba kani shicibku uu soo doortay marka axmedow iska qabsigan waa wax soo socda laakiin halkan waxaad arkaysay in loo isticmaalay oo kaleeto axmedow xukunkii dawladda oo askar ayaa loo diray biirooyada iyagoo dhex jooga askartii oo dhex jooga oo si waxa ay wax baarayaan biiroogii maaragtay qofka jooga oo maaragtay eegaya doosiyadiisii amba indhaha ku haya ayaa maaragtay lasoo taswiiray axmedow arrin khatar weeyaan oona tusaysa dadka reer Djibouti sida dawladdii ay meesha uga baxday wixii dawlad la odhanayay meesha ay uga baxday ay ku soo hadheen oo keli lahaatay dad dan gaara isku haysta inay ku soo hadheen markii ugu horreysay labadan nin isku dhaceen maaha hadiyo dhowr laba jeer horaan filaya inuu warqad ka soo saaray shaqo fadhiisiina shaqadiina laga ku soo noqday markiiba waxba laga soo qaadin meel la odhan karay Djibouti madax male dekedaheedu axmedow markaad aragtid sida uu dhaqmayo ninka madaxa u ah ood arkaysid maaragtay inuu biirooga qof ugu tagayo isagu uu leeyahay ka soo bax waxay ku tusaysaa inuu sharaftii madaxnimadu inay meesha ka baxday waayo waxa weeyaan haddii uu saxeexaaga oo kaliya socdo oo madaxa tahay oo mas'uul tahay uma baahnid inaad biiroo tigtid axmedow qofka aad eriday markaaba halkaaba kasii dhaqaaqaya haddii aad qof eriday axmedow uma baahno inaad biiroogiisa aad tigtid waxay taasi ku tusaysaa kalsooni la'aan aad isku qabtidba inay amarkaagu socon haddaad adigu kol adigoo saxeexaagu hadduuna waxba qaban karayn oo in lagu arka ah adigii waxay ku tusaysaa inaanad maaragtay kalsooni ayna jirin inaanad maaragtay mas'uuliyadnimadaadu aynan maaragtay meel dheer ayna joogin ayay ku tusaysaa marka waxaan ku odhan karayaa madax halkan oo keli lahaatay maaha dhulal badan oo Djibouti madaxuuna jirin baa jira laakiinse halkan waxay ku tusaysaa ninkani inuuna maaragtay mas'uulnimadii iyo maaragtay wixii uu ku shaqaynayay amba maaragtay mas'uuliyaddii uu haynayay inay meesha ka maxsan tahay oo isagu uu yahay oo keli lahaatay qof sida dadka kaleete lamida kuwa kale shaqaynaya ku lamida ayuu yahay oo nin mas'uula sidiisii uma dhaqmin maxaa keenay inuu nin directeera madaxiisa madaragtay ku laado warqadu amba shaqo fadhiisiinta amar diido ku sameeyo way soo noqnoqotay axmedow waxa noogu wacan halkan oo keli lahaatay ma axmedow waddanka Djibouti oo dhan ba habkan u dhaqma nin wasiira nin directeera ma erigi karo sekreteerada u shaqaysa ma erigi karayo waayo labadoodaba qof mid ahaataa keenay waa isku maaragtay isku samcad labadoodu ma aha xafiisyada dawladda waxa weeye markaad mas'uul tahay cidda kula shaqaynaysa qofku isaga maaragtay dalbanaya ciddaaban maaragtay taabaan u baahanay qofku dabadiibu qofkan imanaya iyagana keentay cidda ku keentay baa keentay meel midaatay ku wada dacwoonayaan axmed isku awood bay iyo kan meel midaatay ku dacwoonayaan marka kan wax sheego kani kaleetana waxbuu sheegaya waa meel keli lahaatay maaha dhowr meelood
waa meel keliyaata ayaa meel yaa waddanka maaragtay laga xukumaa meel keliyaata ayaa labadoodaba laga waxeeyey marka midna mid kama sarreeyo waa isku galoono sawirkee baan markaa ka tustay waddanka Djibouti iyo hay'adaha dawladda sawir ceenkee muujinaysaa axmedow horta dadka reer Djibouti waxyo badan oo markii horeete maaragtay ka qarsanaa ayaa waqtiyadan dambeete xoog u soo baxaya oo indhahooda ay ku soo maaragtay arkayaan inay meeshan dawladda ayna jirin ay arkayaan samcadda ay samaynaysa laakiinse dibadda axmedow waa tu khatara oo keenaysana weliba in samcadda waddanka Djibouti haddee toole inay meel ka dhacday ayay ku tusaysaa axmedow waqti yaroo dhow waxaan arkaynay in dekedahan Djibouti gaar ahaanna marsadan kontenerada in xoog looga cawday hoos ay u dhaadhacday markii maaragtay ay soo saartay kaalmaha ay ka kala galeen maaragtay marsooyinka caalamigu baanka adduunyadu soo saaray dawladda Djibouti waa kay wada qayliyeysay ay lahayd waxaan waana nagu khaldamay waddanno kaleeta maaragtay buuqan wada annaga maaragtay waana naga xun yahay waa kuwii lahaa maantane waxa ay leeyihiin tusayaan ay caddaynayaan wixii la sheegayey inay wax runa ay tahay ayay afkooda ka caddeeyeen ayay isku haystaan samcada kale ay tilmaamaysa waxa weeyaan meesha inuu maamul jirin ayay tusaysaa dad baa la shaqaynaya shirkada ayaa doonaya shirkadda Djibouti maaragtay marsada Djibouti inay wax ka soo dejistaan wax ka dhoofsadaan siday u arkayaan waxay arkayaan meel aynan maamul jirin meel uu maamul jirin axmedow ma tegaysid marka waxay ku tusaysaa inay hoos u dhici doonto inay maaragtay khatar ay tahay Djibouti taswiirta ay dibadda ku leedahayna ay baaba tahay ayay ku tusaysaa waa tahay halkaas arinka aan kaga wareegno maxamudow waxaa jiray baraha bulshada isna mad aragtay aanu ka aragnay article soo qoray hay'ad ku shaqale dhinacan maalgashiga iyo mad aragtay hantida marka waxay ka soo qoreen mas'uulka dhinka mas'uulkeego ka soo jeeda waddanka Tunisia khasnada hantida Djibouti madaxa ka ah oo yiri sanduuqa hantida صح فان سوفران لغو يقاano afar Fransiiska ayaa yiri waxaan labalaabeena hantidii hulahaa sanduuqu 10 sano soo socda isagoo ku micneeyay macaashka badan aan ka helno ilay taas u suurta gelinayso maxamuud waxyaalaha kale uu sheegay habku u dhisan yahay ayuu madaragtay micneeyay wuxuu sheegay ilay sanduuqani uu leeyahay hantida 100% Djibouti Telecom waa shirkadda warisgaarsiinta Djibouti u qaybsan 100% uu leeyahay hantidooda dhan shirkadda kale madaragtay shirkadda haysa hantida dekedaha oo Abdulqaadir Xaddi uu ka madaxa yahay taas ilay ka haysato 40% saamiga leedahay madaragtay dekedaha ay leeyihiin hantidooda ta kale wuxuu ku daray 25 malyan inuu uga yimaado kirooyinka baasaska madaragtay Djibouti kirooyinka ku soo dhaca marka la isku wareegayo 25 malyan laga sameeyay marka wuxuu sheegayay inuu madaragtay sanduuqan uu ka shaqeeyo arrimo horumarin dhaqaale ah development economic micnaheega marka la micneeyo hay'adda waxa la yiraahdaa khasnadan hantida waddanka qaranka waxa loogu talagalay lacagta siyaadada macaashka soo gala sidee wax meel amba loogu dhigaa waxa loogu qabtaa generationada dambe shilka dambe ee soo socda waa lacagta macaashka ee farabadan amba wadamada khaliijka oo kale petrolka ka soo gala ayaa madaragtay meel gooniya loo dhigayaa si jilka dambe uga faa'iideysto laakiin Djibouti hantida madaragtay amba macaashka soo gala loguma faa'iideynayo jilka dambe horumar waxay ka dhigan tahay imika ayaa loo baahan yahay oo la horumar gelinaya marka horumar iyo dhaxalka jilka dambe way kala duwan tahay labadaasi hawsha qabtaana waa hawsh horumarin dhaqaalaha Djibouti way leedahay bangiyaal horumarka dhaqaalaha ka soo shaqeeyay bank de development baan leenahay
expertise-kii waan leenahay bank de development-ga lagu maamuli lahaa maxaa looga baahan yahay markaa inaad adigoo haysta competensadii had nin ajaaniba usoo qaaday wuxuu ninka reer Djibouti samaynayo maxaad uga doonanaysaa madaragtay meel nin shisheeya oo ninkii reer Djibouti aad u hormarinaysaa nin ajaaniba miyayna Djibouti first jirin arrinka caynkaas mar bay ka dhawaajin jireen Djibouti first nimanka talada haya aaway Djibouti first ku dhawaaqaysin maxaad dadka Djibouti wax bartay amba kartida leh wax ku qabtaan loogu diidan yahay oo dad kale ajaaniba example labaad baan ku siinaya Maxamuudow waxa ugu yar waa journalism weeyaan waa journalismga madaxweynaha waddanku ma siiyo warbixin maxaa la yiraahdaa interview ma siiyo jaraa'idada madaragtay Djibouti Faransiiska ku hadla nin ajaanib ayaa loo yeeraa maxay u qaban kari lahayn journalistada Djibouti ya luqadaha Faransiiska way ku wareysan karaan af Soomaaliga way ku wareysan karaan why marka waa Djibouti first wuxuu kaloo ninkan ku daray mas'uulkii ka hadlay mas'uulka khasnada hantida Djibouti waxyaalahay leedahay iyadu wuxuu ku daray imikadana waxa u diyaarsan mashruucyo badan oo isku daba xiga oo ay ugu horeyso data center maalgashiyadu gelin doono waxyaalaha mashruucyada soo socdo meel gelin doono waxa ku jirta data center ay leedahay gabadhu Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha inantiisa xaawo leedaha iyo odagayga madaragtay ay wali leeyihiin marka halkaas waxay ku tusaysaa ilay wixii dawladdan madaragtay iyo wixii la kala saarin haddi kadib wixii familiga madaxweynuhu lahaa iyo wixii hantida waddanka ay lahayd si madaragtay madax bannaan looma diidana waa qof reer Djibouti laakiin si madax bannaan looga faa'iideysan lahaa taas madax waxay ku tusaysaa ilay nepotism tahay maxaa la yidhaha qaraabo shil kiil ba la yidhaha qaraabo tiiba af Soomaaliga runta lagu yidhaha nepotismiga ta kale waxa jirta Maxamuudow dhibaatada aanu tilmaamay ninkaasi siday meesha waxa ka socda rapport lama bibliyeeyo warbixin lagama siiyo ummadda reer Djibouti isla sidaan ku sheegay cadicad kale doonto dibadda maxaa reer Djibouti loo soo horfariisan lahayo intaas malyan baan qabanay halka A B C D intaas oo mashruuc baan keenay waxaasan madaragta ka sameynay maanta imsa sanadood bay jirtaa ilaa maantada rapport lagama arag xayeysiis telefisonka looga sameeyo maahe oo waliba ninka meesha jooga sawirkiisa oo ku ilaashanaya inuu wixii meel fogeeyay iyadoona meeshii ay ka talaabin Djibouti bay dhaafin aan ku soo gabagabeyn Maxamuud haddaad wax ku dareyn way Ahmed su'aal ninkaasi waxa laga arkaa oo kale inuu iibsado eerdada aad sheegaysid inuu wargeyska Jan Africa oo kale ka iibsado Djibouti journalism ma jiraan wariyaal ma jiraan nasaaba laguma samayn karo ha maxaa waa kumbariya jira privé Maxamuud kumbariya privé jiro waxyaalaha ka shaqeeya way Ahmed arinta halka laakiin kama duwana dawladdu soo u dhaqmayso oo bisma u dhaqmayaan ninkaas way Ahmed waxa la hadalhayo kale ninkaas in dacwadi ay ku socoto arintii dacwadii ma jirto Tunis laga eriyanay Maxamuud way jirtaa dacwadii laakiin ma xafilaya inuu hab yar oo kale loo maray oo sharci ma hubo inuu sharci reer Djibouti iyo immunity madaragtay diplomatique oo ninkaasi ku socdo si loo garab maro xeerarka amba dawladda eryanayseed maxkamadda madaragtay ku daba jirta inuu hareer maro waa laga wareegi karaa passport diplomatique si dibadaha markuu tago loo qaban Djiboutina uma tabinayso waddanku u dhashay uma tabinayso ee laga raadceynayo way Ahmed arinta halkaan ku dhaafna Ahmedow wanaga dadka u sheegnay maanta waa maalin ciida waxaan rajaynaynaa horta inay ciid wacan maaragtay ciid fiican ay ku ciidaan iyadoo aan garanayno dhibaatooyin badan inay Djibouti ka jiraan haddana waxaan leenahay dadka reer Djibouti ciid mubaarak ciid fiican ku ciida ciid niyadsan Ahmed intaanan barnaamijka aan soo gabagabin waxaan doonaynaa arrimaha dibadda inaan ka hadalno amba arrimaha geeska Ahmed waxa mudow muhiim ah waa kubadda cagta way Ahmed kubadda cagta Djibouti Ahmedow kubadda cagta wax badan lagama sheego waxa la yiraahdaa inta badan Djibouti waa laga badshi maxaa soo biiray Ahmed waxa soo biiray ciyaar baa jirtay aan ciyaarnay Ethiopia la ciyaarnay toddobaadkan oo lagaga badiyay Djibouti 6 gool iyo 1
lagaga badiyey taasna waa guuldaradii madaragtay hore ayay ku soo biirtay guuldaradii ugu dambeysay weeyaan maxamuudow maalin dhoweedna waan canaaninaynay kaalinta kubadda cagta Djibouti ay madaragtay ka joogta adduunka iyo dhibaatooyinka haysta iyo sidii looga bixi lahaaba waxaad arkaysaa kubaddii hoos u dhacaysa laakiin ninkii mas-uulka ahaa oo isna madaragtay sii fuulaya jagooyin kale sii helaya oo sii madaragtay ballaarsanaya labada ismale marka muhiimiyadda waxaa la saaray sidii ninka waa beri la yidhaaha haysta siduu u dalici lahaa ayuu madaragtay maalgashiyo kale oo adduunka madaragtay uga soo qaadan lahaa mise waxaa loogu talagalay resourceka yare Djibouti ila kubadda cagta sare loogu qaado waxyaalaha kale maxamuudow ay ballan qaadeen waxa weeyaan garoonka kubadda Djibouti oona madaragtay ku dhisnayn maxaa la yidhahdaa ciyaaraha adduunka lagu sameeyo inuu ballan qaaday ninka waa beri la dhisi doono oo wasaaraddu ay ku hoolan tahay sidii waxyaalaha ka dhiman loogu biirin lahaa si ciyaarnahan loogu qabto laakiin iminka ciyaaraha Djibouti waddan kale ku qabsataa iminkaan waxaa loo wadaa ciyaartooydeenii Tunisia baan filayaa Tunisia ay tababar u tagaan waayo isreereebkii baa lagu jiraa kubadda cagta ee 20 iyo Axmedow waddan aan shicibka dadkooda ku hor ciyaari karayn ciyaartooydan waddankooda ku hor ciyaari karayn miyaan la oran karay Djibouti ciyaartooy ma balahaba waayo dadka jirto تلفزيون bay ka daawadaan reer Djibouti ekiibkooda waxaa jira maxamuudow waxaan xasuustay filim baa jira kuwa madaragtay Jamaican oo ka qayb galay maxaa la yidhaha sport diverka maasha marka Djibouti saas ku dhextay kubadda cagta way Djibouti kubadda saas ku tahay way Axmed taa arrintan halkaa kaga tagno arrinta ugu dambaysa doonayna inaan barnaamijkan caawa kusoo gabagabeyno waa arrinta geeska gaar ahaan arrimaha kusoo biiray imika Soomaaliya oo la sheegay warqad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u qoray Mareykanka taasoo keentay jawaab ka timiday dawladda maaragtay ambo xukunka kelidii madax bannaanida ugu dhawaaqay ee Somaliland uu Dr. Ciro madaxa ka yahay Axmed maxay ku saabsanayd warqadda uu u qoray Xasan Sheekh Maxamuud Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Trump warqadda shalay bay soo baxday maxamuudow waxaana ku xusnaa madaxweynaha Soomaaliya oo kale madaxweynaha Mareykanka inay dawladda Soomaaliya ay ku soo dhaweynayso oo ina madaragtay u furan tahay inay ka wada shaqeeyaan la dagaalanka iyo hawsha ku jirto Mareykanka ee la madaragtay nabadgelyada iyo xasiloonida regionka ku nool lahay inay Soomaaliya arrinka ay ku taageerayso Mareykanka oo ina siinayso ay dikado hay ciidankoodu madaragtay ay soo degaan dikaday sheegtay waxa kamid ah Berbera iyo tukalo ku taala Puntland ku taala oo Boosaaso filay labada ay saldhigo ay ka dhigan karaan oo controlka ay la wareegi karaan ayaha dambana maalgashiyo kale madaragtay ku biirin karaan dikada cidna ay lahayn laakiin maanta diyaar u tahay dawladda federaalku inay ku soo dhaweyso maxaa la yidhahaa qoladan Mareykanka ku soo dhaweyso marka waxay ahayd offer bay ahayd offerkan waxa ku horeeyay dalab dawladda Mareykanka ka yimiday oo Soomaaliya ay kaga dalbanayeen inay dhul siiso maxamuudow waxaa jiray ma jirin laakiin waxbaa jiray maxamuudow baryahan waxaa la hadalhayay qolooyinkan madaragtay gooni goosadku maamulka Somaliland inuu hawl ku jiro Mareykanka dhexdiisa uuna rabo inuu Mareykanku aqoonsado taasay u mareen madaragtay nin senateera oo sharci ka doonaya inuu geliyo amba projet de loi soo saaray ka sanadka uu geeyey oo laakiin de weli madaragtay la meelmarin amba de waxa filaya inuu sanadkii hore raacay xisaabtii sanadkii hore oo halkaa uu ku san qaar igu sheegeen arrinkaasaa jiray marka loobi badan bay lacag ku bixiyaan maxamuudow oo jaraa'idada waxyaalahaas madaragtay safiiro hore lacag siyan si campaign ugu sameeyaan ta kale waxa baraha bulshada la soo geliyay Trump baa madaragtay bisha Janvier na aqoonsanaya bishii Janvier way dhaaftay February baa hadana na aqoonsanaya Britol way imanaya sahan dambu na aqoonsanaya dawladana waxaan maqlay Soomaaliya arrinka iyaduna la kaga jawaabtay iyadna ilay karaysato loobiyo ka dhaadhiciya madaragtay dawladda Mareykanka ila la taaban karin xasiloonida iyo madaragtay territory-ga
هيلاد هاي الصوماليا الصوماليا قرأتو هي جرتو أي مريكا كده البناء سالي وافقنا ذان أم باي وذان سياسة دودي هاي وان صوماليا وي تاسا كنتين ماتا إلو حسن إن ورقدن ما دركتي إن هو قرأ وكيداهو نمك يقول جوست كما دركتي هرتود بس سيمر ويداها ما دركتي هالكاس أنا جودن كودن حكومة هالكاس أنا كسي إن كده السود كده دونيسي كاري أطول هالليناي هدي ودقة مريكانكو أحمدو هدي ودقة إن يولا شاكيسن دونا دي كده هدي ودقة يولا شاكيسن محمود وحمريكا كتشوف كل نقول إيسا سياسة يرى كلو ضد بنجرتي إلو إن سياسة مريكا كل حلية وان صومالي والله بس صومالي سوق مدرك لكن أرمها الدنيا سياسة سكيورتي نما كان كله جوني قصة كان إلو مدركتي إن كلا شقيستو والله دجالة كأجهزة وكله تجرا وكلا شقيستا لكن waxa kaloo dhan waa dawladda federaalka ah buu aqoonsan yahay inay madaragtay ka wada taliso xuduudaha Soomaaliya oo dhan madaragtay loo yacade ilaa Raaskamboodi halka ku taalo dawladda Xasan Sheekh madaxa ka yahay ayuu aqoon laakiin arrimaha quseeya humanitarianka degdega amba la dagaalanka argagixisada waxaan filayaa toos inay saraakiisha ciidanka u yimaadaan argeysa ay isweeraasadaan madaragteen wixii xoga iyo wixii madaragteen ay wala qaban lahaayeen madaragtay taas la ogol yahay maxamuudo marka mareykanku tii u fiicneed buu arkay qoladana waxaa muhiimka kala shaqeyn xuduudaha iyo waddanka oo dhanna madaragtay qoladan kala shaqeyn saasuu mareykanku u kala qaybtamay laakiin muu iman doonaa anuu ma iman doonaan oo kale mareykanku siyaasadda ninka haystay waxa weeyaan ilo arrimaha dibadda una ka noqon jaandarankii meel kasta joogayay ilo wax dantiisuna ay tahay waddankiisa maxaa soo galay u faa'iido maxaa waddankiisa madaragtay horumarinayo macaash ka helaya marka dawladda Soomaaliya berbera ku iman karo mareykan waxa weeyaan waa hadday dawladda Soomaaliya tiraaho beeska soo dejiisiisa dhisidiisa ciidanka la kharashkooga ilaa rasaasta ridayaan anaka bixinayno iyo kirada madaragtay anaka qabnay kaalay waa conditionka quraata taasna de Soomaaliya ma sameyn karto dawladaha kale taas waa Sacuudiga oo kale Sacuudiga oo kale nimanka lacagta fara badan haysta way ka iibin karaan mashruucaankaas dikada ilay fariisiyaan Mareykan laakiin Soomaaliya iyo Afrikada kale ma karayso maxamuudo arrinkaas aad ka dadajiyay arrinkan laakiin waxa dhacday inuu maanta aan arkayay Cabdiraxmaan Ciro oo ka madaxweynaha maamulka Somaliland inuu ka jawaabay uuna yiri Xasan been buu sheegayaa madaragtay ma xakumo berbera oo lug ma iman karo annaka madaragtay xakunna dadka nacabeenta ka daa Mareykanku hadduu doonayo annaku nagala xidhiidhi karaa arrimo ha marka halkaas madaragtay jawaabtaas ka bixiyay Cabdiraxmaan Cirana way Ahmed tukala haddaan kugu daro Mareykanka iyo Yuhuuddu waxa ay leeyihiin waxa doonaynaa inaan masaafurino 2 malyan reer Falastiin ee Gaza oo ay leeyihiin meesha wax kale taan ka dhigaynaa waxaana wadanada ay soo hadal qaadeen in dadka ay geeyaan ku jirtay Soomaaliya iyo leeyta Suudaan arrintaas Soomaalidu ma ka farciyeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhuftay oo yiri madaragtay annaku waxaan aaminsanahay Falastiiniinta in dhulkooda lagu hayo dhulkoodana lagu nabadgeliyo wax laga soo kicin karo madaragtay halkaas uu iska taagayso inuu ku taageerayo madaragtay ummadda reer Falastiin dhulkooda iyo si xor ah ugu noolaadaan taasoo madaragtay yirayaan aaminsanahay Soomaaliyan waa arrinkan kare madaragtay Trump maxamuud Trump ila doctor mooyo Canada qabsanaya wiil marka carruurta haddii la weydiiyana madaragtay waa maskaxdooda ma galayso marka arrinkaas wuxuu haaban filayaa hoteelan ka dhisaya Falastiin ilaa waxyaalaha adag waxba ka dhacdhaca ilaa waxaasun ka mid ahaayeen baan filaya laakiin dad baa madaragtay baraha bulshada geliyo oo yiri madaragtay waxa soo dejinayaa buu yiri maamulka Somaliland ayaan keenayaa wasiirka Somaliland ayaa ka jawaabay oo yiri annaka waxaan loo yimid oo la weydiiyay ma jirto laakiin diyaar buu yeelanay inay 2 malyan ay wadankooda ay keenaan Somaliland maxamuud dadka Falastiin hadii laga yiraahdo wadanka adduunka ugu fiican classmooda Finland baa gashan filaya Finland baa liigeynaya hadii laga yiraahdo ma tagayaan
waayo waa dad dhulkooga jecel ay awooyaashooda iyo madaragtay tafiirtooda ay ku dhinteen oo dhiig ku daadiyeen markaas si dhib yar madaragtay waddanka adduunka ugu fiican haddii la geeyo qadiyad bay daafacayaan dadkaasi dhaqankoogii iyo taariikhdoodii waxyaala ka waaweyn oo laakiin anigu lafaan waxaan arkaa inay xadgudub ku tahay ila dadka madaragtay la miidhayeel sida xun loo galayo ila la yidhaaho annaka ahaynina noo keena madaragtay waya axmed yuhuudda iyo maraykanka raba dhulka inay ka qaataan waya axmed xoog ayaad u mahadsan tahay barnaamijka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa gebi ahaana dadkana dhegaysanaya amba maaragtay muslimiinta adduunyada waxaan leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan axmed mar labaad waad mahadsan tahay dadkana waxaan leenahay barnaamijka lamid a hadduu alla yidhaahdo toddobaadka soo socda intaan ku kulmi doono waxaan leenahay nabadgelyo iyo nooli kulanta